ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa kala dhexgalay dhibaatooyin ay isgaarsiinayeen qaar ka mid ah beelo walaalo ah oo ku sugan deegaanka Galmudug. Fartuun Cabdi Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyay arrintan inoo faahfaahinaysa. ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya ayaa saacadihii la soo dhaafay kala dhexgalay laba maleeshiyad beeleedyo oo dhawaan ku dagaalamay degmooyinka Mirxile iyo Bangaale. odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda degmooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado ayaana bogaadiyay hawsha ay qabteen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen inay garab taagan yihiin shaqada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo in xal buuxa laga gaaro dagaalka. taliyaha guutada 13aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 21aad Colaad Cabdiraxmaan Macalin Maxamuud Timadheere ayaana sheegay inaysan ogolaan doonin in dagaal beeleedyo halkaasi ay ka dhacaan haatan ay xaaladu degan tahay. maalmihii la soo dhaafay ayaana deegaanada Mirxile iyo Bangaale waxaa ka taagnaa cabsi xoogan oo ay ku aadan dagaal sababi kara khasaare naf iyo maalba leh. Fartuun Cabdi Nuur, telefishinka Somali Cable, Muqdisho.